jooji sonkorta badan. Sonkortu waxay sababtaa caafimaad darrooyin badan sida xanuunka macaanka iyo buurnida daran uuna la socdo xanuunada saameeya wadnaha. Haddaad joojiso isticmaalka badan ee sonkorta, waxaad isbeddel degdeg oo caafimaad ka dareemaysaa dhammaan jirkaaga. Sidan baa kugu dhacaysa haddaad joojiso isticmaalka badan ee sonkorta. Hoos u dhigidda macaanka. Haddaad yareyso qaadashada sonkorta, waxaa siyaadiya heerka hormoonka insulin. Hormoonkan ayaa dhex qulqula dhiigga isagoo isku xandaaba sonkorta jirka, hoosna u dhiga heerkeeda. Taasina waxay yareynaysaa khatarta macaanka. Caafimaadka wadnaha. Sonkorta badan ee jirka waxay kordhisaa dhiigkarka sababta heerka hormoonka insulin oo kacsan. Dhiigkarkuna wuxuu dhaawacaa wadnaha, marka xaddidaadda sonkorta waxay ka qayb qaadanaysaa caafimaadka wadnaha. Caafimaadka beerka. Markasta oo aad badsato cuntooyinka ku badan sonkorta, waxaa badanaya xayrta kuna hogaaminaysa in beerku ay xayr fuusho. Markasta oo aad yareyso sonkorta, beerku wuu caafimaad qabaa. Caafimaadka ilkaha. Qaadashada badan ee cuntooyinka sonkortu ku badan tahay waxay ilkaha u keentaa bolol iyo in xididka iligu dabco. Marka yareynta sonkorta, waxaad ka helaysaa dhoolla caddayn qurxan. Caafimaadka maqaarka. Isticmaalka badan ee cuntooyinka ay sonkortu ku badan tahay waxay sababaan finan. Marka haddii aad doonayso in finanku kaa yaraadaan, wejiguna ku noqdo sulub, ka fogow sonkorta. Sidoo kale, isticmaalka badan ee sonkorta wuxuu maqaarkaaga u ekaysiiyaa qof da' ah oo waayeel ah. Miisaan dhimis. Miisaankaaga ayaa dhacaya si degdeg ah markii lala barbardhigo aalmiitada loola jeedo miisaan dhimista.